بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد عليه الصحة والسلام maanta ay taariikhdu tahay 10kii bishii koowaad 2021 waxa ka dhacay wasaaradda maaliyadda shir oo madaxweynuhu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenkuna joogay oo la isugu yeeray khuburo iyo madaxdii hore oo soo maray wasaaradda maaliyadda madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo wasiirka maaliyadda laba soo noqday markii hore Faarax Cali Shire Cabdullaahi Sheekh Professor Samantar jaamacadaha macallimiinta ka dhiga dhaqaalaha ka dhiga aqoon-yahanada ah dadkaas oo dhan baa la isugu yeeray wasaaradda maaliyadda bangiga gobolka degmada madaxweynuhu wuxuu shir gudoominayay shirkaas oo looga hadlayay xaaladii sicir bararka oo jirtay in go'aam awal bashiir baa ka socday laakiin shirarkii ugu dambeeyay laga gaaro bal in la iska waraysto waxa ugu dhow oo xal u noqon kara haday professoradii dhaqaalaha tahay haday ragii wasaaradda soo maray tahay kulluhum in laga wada hadlo falanqayn iyo dood dheer ka bacdi waxa la qabtay guddi uu gudoomiye u yahay madaxweynaha hore Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo ay wasiiradu ku jiraan Professor Samantar ku jiro professorada jaamacadaha ay ku jiraan iyaga ayaa waxa laga sugayaa wixii tala soo jeedin ah oo laga gaari karo dibtaan hadda sicir barar ma aha qiimo dhaca ku dhacay shin Soomaaliga wixii dawladdu ay ka gaari lahayd madaxweynuhu guddigaas buu yiri ka soo tala bixiya wasaaradda maaliyadda waa ku jiraa bangiga waa ku jiraa wasaaradda ganacsiga waa ku jiraan jaamacadaha iyo ragaas akhyaarta professorada iyo wasiirada hore madaxweynaha hore waxaan ka sugaynaa hadii rabidmo muddo 3 bil gudahood ah inay ku keenaaniin waxyaabo la kala doorto oo ay u arkaaneen markaas waxa problemka ka taagan in lagu xallin karo marka guddigaasan ka sugaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa hadii rabidmo waxaan maqal jiray ceelna uma qodna cidna uma maqan ceelna uma qodna maamaha Soomaaliyeed cidii lagu tuhmayay aqoon dhaqaale in maanta halkan la isugu keenay waana wax sharci ah marka dhinaca diinta loo eego fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun cidda waxa cilmiga u leh weydii waa ayadii quraanka ahayd marka waxaan ka sugaynaa runtii xaqiiqiyan in la keeno waxyaabo la kala doorto oo loo arko inay maslaxad u noqon karto hadda problemka jira 3 bari gudahood baan sugaynaa shacabkana waxaan leenahay dawladdu markii horena dadaal bay waday arintan warkii horena waxa loo galay in shacabka loo daneeyo haddana wali waa la wadaa cidna hadda waxba ka sheegmayo dhaliilmayo ganacsato iyo sarifle iyo mid wax ka sheegmayo problemisku wuxuu noqon doono rag baa loo xil saaray cidda problemka wada iyo cidda wax ka socon waayeen iyo waxa la rabo in ay xal ku noqdo waxa laga sugayaa ragga khubarada baa laga sugayaa insha Allah 3 bil gudahood aad iyo aad baa u mahadsantihiin meediyaha